howlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyo dulqaad ee xala'an ayaa laga rabaa xalay dalka Jarmalka ku geeriyooday Allah u naxariistay fanaankii Soomaaliyeed Cabdi Cali Bacalwaan oo in muddo ah ku xanuunsanaa dalkaasi fanaanka ayaa lagu soo waramayaa in toddobaadyadii ugu dambeeyay uu ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala magaalada Mainz ee dalka Jarmalka isagoo ku jiray xaalad miir dabool ah Bacalwaan waxa uu kamid ahaa tiirarkii hobolada Waaberi isagoo oo markaasi ku luqeeyay heeso tiro badan oo isugu jira jacayl iyo wadani waxa uu ahaa fanaan si weyn dadka ay codkiisa u jeclaayeen wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka wareystay taariikhda marxuumka Hodan Cumar Duule oo ah fanaanad degan dalka Jarmalka marka hore waxa xaaladiisii caafimaad ee hore ka waramaya Sheekh Cabdiqani Xoosh Bare oo marxuumka ka warhayay intii uu xanuunsanaa wuxuu yimid Jarmalka Cabdixaafid oo Bacalwaan 2014 ilaa muddo 6 sanadood ah ayuu hadda wadanka Jarmalka ku noolaa xilliga uu yimidna xilli aad u xanuunsanaya ahaydoo xanuunkiisii hore caloosha wuxuu ka bilaabay degenaanshiyaha magaalada München marka halkaas oo amaliyad lagaga sameeyay aad iyo aad u ballaaran muddo dhowr biloodna uu koomo ku jiray Ilaahay uu ka caafiyay marka intii ugu dambeysana waxaan nasiib aan u yeelanay annagoo ah reer Mainz 5 sano ugu dambeysay inuu halkaan nagula noolaado magaalada leexda Mainz wadanka Jarmalka waa tahay marka Allah yarxamo marxuumku qalitaan weyn ayuu hore dalka Jarmalka ugu galay waanu ka kacay imika muddo intee leeg ayuu dhakhtar ku jiray intan imika xanuunkan uu u dhintay dhakhtarka loo dhigay qiyaastii marka la isku soo duubo 2 bilood weeye markii hore uu ka soo baxay wal caafimaad qabtaa bay yiraahdeen haddana mar labaad buu aad u qufacay oo aad u magaranaysa u xanuunsaday dhakhtarkii marka la dhigana waxay sheegeen muddo hadda laga joogo bil inuu aad magaranaysa u tabardaran yahay dhuuntiisu aad u tabardaran tahay oo neeftii sida loogu talagalay inuu u gaarsiin sanbabadii muddo hadda 3 sitimaan laga joogo ayay kooma geliyeen oo ay ku dhaadhiciyeen tuubooyin ka caawiya hawada marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariistee xalay markay ahayd saacadu 23 iyo barkii 11 iyo barkii habeenimo ayaa naloo soo sheegay dhakhtarku soo sheegay in naftu ka baxday waa yahay Allah ha u naxariisto marka ma Jarmalka ayaa lagu aasayaa mise waxa jira qorshayaal kale oo in dalkii meydka la geeyo ayaa wadaan hawl ah Cabdixaafid oo khayr Allah ku siiyo imika annagoo ah ehelkii Bacalwaan iyo 2 masaajid oo halkaan nooga dhisan magaalada Mainz iyo magaalada Piestada kaliya imka hawsha ku mashquulsan dawladda Soomaaliyeed wali wax nala soo xiriiray ama malaha way soo socdaan ma filayaa ma jirto marka annaguna waxaan qorsheynaynaa xoogga ugu badan inaan saarno in wadankii lagu aaso si loogu sameeyo maamuus qaran haddii marka ay suurtoobi weydo oo sidaad la socotaba dadka coronavirus u dhinta way adag tahay in la ambabixiyo haddii ay suurtoobi weydana marka waxaanu noqonaysaa inaanu magaalada Mainz wadanka Jarmalka aanu ku aasno haddii Ilaahay ka raali noqdo walaal Cabdixaafid waad mahadsan tahay adeer wuxuu ahaa adeer Cabdi Cali Bacalwaan wuxuu ahaa shakhsi aad iyo aad u wanaagsan kaftan badan naxariis badan maaragtay dad jecel Soomaalinimada ku intahay markay isagii aabbihi yimaadaan guriga kaftami jiray oo ma garanaysaa naxariis badnaayo farxaan ahaa mar walba oo aanad arkin isagoo caraysanba aanad arkin ayuu adeer ahaa oo aad u dad jeclaa waa tahay dhinacii fankiisa haddii aynu eegno maxaad ka xasuusataa xilliguu fanka soo galay iyo qaabka uu soo galayba adeer fanka wuxuu soo galay 1965 isagoo markaa ka qayb galay tartan lagu sameynayay magaalada Muqdisho oo adeer ka mid noqday kaalinta koowaad fanaankii galay
una soo shaqeeyey kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed markii dambana kooxdii gobolada Waaberi kusoo biiray ayuu adeer ahaa fankiisa. waxa uu ahaa markaas fanaan buu ahaa la xamaystay ayuu ahaa sidoo kale riwaayadahana jilaa buu ahaa riwaayadahu wuxuu ahaa xamiistu ahaa jilaa buu ahaa heesaa buu ahaa fanka loo dancerku ciyaariyey يعني قيب والب فنك وكسر قاتي أغير وكسر قيب قال دينا والب فنك الصوماليات محاد كحسوسة هسه ولحن كساري هذا الله نحرست عبد علي بعلوان أغير هسه بدن بقول لحن كساري لكن وحن حسوسة هستي أهي هو هاي أفريقيا يهردوي أو أي قادي سي إلى هاي نحرست جماعة كورابية إيدو حليمة قليف مغول ayuu adeer laxanka saaray taasaan xasuustaa iminka waa hagaag dhinaca qoyskii uu ka tegay marxuumka haddaynu usoo noqono hal xaas ayuu lahaa mise dhowr dumar ayuu guursaday caruurna imise ayuu dhalay cabdixaafid oo walaalo adeero anigu waxaan aan xasuustaa oo uu qabay hal xaas buu lahaa ee dafaadime bikeeri ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye oo iyadana markaa u haysay afar caruur oo markaa joogay iyo markii dambana ay beebiyadii dhashay anu laakiin wadanka markaa waan kasoo tegay laba wiil iyo laba gabdhood bay ahaayeen cabdullaahi afyare aniise ilhaan markaa labadii inan way dhinteen aniise iyo ilhaan baa iminka nool oo xamar jooga waa tahay hodanay markaas maxaad is odhan lahayd ama aad is leedahay الله نحرسته مرحومك ولو حسوسن دونا waxyaabo badan baa lagu xasuusan doonaa oo halkan lagu soo koobi karo laakiin waxaan oranayaa adeero qayb ka baxday fankii Soomaaliyeed qayb weyn oo ka baxday fankii Soomaaliyeed ayuu oo noqday oo magaranaysa waxa lagu soo xasuusan doonaa farxaanimadiisii naxariistii kaftankii badnaa dad jacaylnimadii Soomaali jacaylnimadii wanaagii badnaa qof walbana uu jeclaa inuu waaniyo oo wanaag uu la kulmo shakhsi aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa walaalo oo waxyaabo badan baa lagu soo xasuusanaya adeero taas waxay ahayd hodan cumar duulle oo ah fanaanad degan dalka Jarmalka oo ka warramaysa geerida fanaanka Cabdi Cali Bacalwaan Allah u naxariistay waxaa ka horeeyay Sheekh Cabdiqani Xoosh Bare oo xaaladda marxuumka intuu xanuunsanaa isaguna la socday الله ونحرسته عبد علي بعلوان ورئيسكن أو سيء لانت في الصومالية فيه وبرنامج كعويس كواشنطن بشي لبي تبنات سنة كل بدي يكون يصدحية تبنكي وحنا حسوسهان إذن كسو قادينا قيبتن أو كجهد لي تاريخ نولد كيسي هالك وكل شيء قرت وفنك كسو بيري إيه ولبا أساسكي كوحدي مقعوين كسبتي هو بلد وابري أو سجنا كمدها دتك اللي جبدي وحنا كبلا موريسجني سيدتان عبد علي بعلوان كسر دو برنامج كعويس كواشنطن شاب بن سدوان يا والزدوين هل كذا ما كتشوكتها بعلوان حجوا جرمني مقال موشي راسل واحد ما عفمت بانو اللي بكا عنك ولا سنوات ضرورة سنة عبد علي بعلوان مقع بعلوان مقع adigu aad leedahay naanaysku aba misawa magac qoyskaaga ama awooga iyo kale lagu naanayso magacani waxa weeye berigii aan dhashay ayaa reerku wuxuu ahaa reer Soomaal qabeen waata marka islaam baa aniga ii qaybsanay oo gaar ah uu qaybiyay islaamtaas ay hay oo inanka hay oo maxaa bal hagaajiyo oo gacanta ku hayo caynka sax islaamti marka dhul yar oo buuran oo baxashaksan waana haye si leeyahay wili sax marka ilmaha qaylada buuqa badan ma lahayn baa waata marka markii aan waxbo waxaanay ay si waxa tira Bacalwaan Allah kana waa Bacalwaane Bacalwaan bacdi wuxuu waxay Bacalwaan bacdi islaasa Bacalwaan bacdi la kusi baa loo ritay baa reerka islaasa heerka la joogo la deganay ay dalay Bacalwaan magaca asaas uu waligay ila yaraantay yaa la oranjiyaa marka macnihiisu muxuu noqonayaa Bacalwaan waxa buuran oo dabacad kaksan oo u yara buuran saas uma ka soo qaaday xageed ku dhalatay Cabdi Cali waxa ku dhashay oo dheer meesha leeyahay waa tahay marka xagaasaad ku soo kortay halkaasaan ku yara koray daano yarna xamar baa lay keenay aalmido waa ka marka fanka goormaad bilowday adiga oo kuugu horeysay ma fanka waa jeclaayo waxa weeye heesaha dadku qaadaan filaadintii lagu horeysay heesaha qaadaan sax ayuba qaad jiray iska jeclaayo markaas waxaan iska dhigi jiray heesaha oo balaayo oo
khatar ahoo yaan iska dhigi jiray mafahanti waan gartaa marka 65 markay ahayd ayuun baa tartan yaroo idaacadda lala yeeray raadiyo muqdisho haya ayaa la yidhi koox la tartantaa la rabaa ana fankii iska suuqaada ciyaal iska suuqa jooga oo fanka ah u heeseysa oo weliba urursada sax tartankii baa waxaa soo ururiyey muusig yaroo qofba meel ka keenay qofba meel mid bilaajo ka keen mid marka ka keen mid magaalada dhexeeda ka soo qabo mid buule aanay ka soo qabo falo wato mahaya kii yar baan kula tartamay marka adiga iyo kooxdaadii iyo kooxdii adaa heesaya haya qorana waa ii tumaya 3 hees baa la rabaa oo mise daqiiqa ah waata waxba ilaahay ku daayay ninkaygii yaraaye meesha yimid boor buu kaga tuyay meesha marka qoladii radio muqdisho ayaad fooda istarteen isdaro waxaa doonaya koox la tartanto bal magaalada laga raadinayay waa tahay marka heesihii aad maalintaa qaaday 1965 ma xasuusataa qaar ka mid a ila adeer waxba ka garan maayo laakiin 3 hees baan ta qaaday ayaa qoladii guddiga waxay yidhahdeen waa inan ka yar oo dadkaa isu soo ururiyey kooxdan qaranka la tartansiinayna isagaa lambarwo siinayna waa tahay lambarwo baa la siiyey marka heesaha ma adaa soo aliftay mise heese meel kale lagaaga soo dhiibay bay ahaayeen may nin aan saaxiiban nahay oo habeengarna la oran jiray oo qaar buu sameeyey anna qaar baan sameeyey waxbaan isu gegeeyey gacdadu isu tagtay baanu ahay waa tay markaa kadib maxaa dhacay maalintaa markaad ka badisay dee waxaad garatay inaad fanaan markaan ka badiyey waxaan noqday nin faamoos oo dadka u sacabinayaan oo dee waxaa weye macruuf noqday waa tahay waaban u qaadan waayba inaad waxaan wallahi dalkaad jiidhay haddaan ku yidhaha lacag 400 oo shilin oo markaa joogtana waa lagu siiyey gacantaan layga saaray boqolka markaasna ninkii boqol haya waxaa la oran jiray ninkaasi 100 madow buu wataa markaasa adna lagu dhiibay 400 oo madmadow 400 markaasaan wareeray baladba meelgee ba 20ka muddo la haynaya muddo 20 shilin waa berisamaadkii dee waan gartay marka haddana heeso oo lagu dhiibay oo ma jiraan aad keli kusii qaaday mise markiiba riwaayad baad hore ka bilowday markiiba qoladii radio muqdisho ayaa waxaa la yidhi qofka ugu horreeya oo qaata ha noqdo anoo iyagii sugaya military waxay yidhahdeen kooxdii militariga xoogga dalka ayaa waxay yidhahdeen inanka yaree soo baxay ee halka caynkaas garaadaanu siinaynaa waxa weeye imtixaan baan ka qaadanaynaa annagaa qaadanayna dib uu gelayaa 66 baan dib ugii galay oo dee fanaan noqaad islahayd sata askari lagaa dhigay maaha hada kooxdu waa kooxdii militariga oo muusigii baxsan baa ku jirto ismaan aadan baa ku jiro sungi baa ku jiro waa caligaab baa ku jiro waxa weeye kooxdu waa kooxdii fanka ahayd waa tahay marka waxay leeyihiin militariga wuxuu leeyahay qayb music ah oo qayb music oo baa leeyahay markay maqleen bay ninka anaga qaadanay kooxdii baan ku biiray oo rag baa soo dhaweeyay sungi ka mid yahay oo gacan qabtay oo si wanaagsan ii soo dhaweeyay waa tahay hadee waxaa noqday inuu wanaagsan oo actor ahoo riwaadaha xagga sameeyo oo heeso oo muxuu ahaa jilaa ahoo waxaa noqday waan dhex galayba riwaayadii kuugu horreysay ee aad ka qayb gashay teebay ahayd riwaayadii ugu horreysay oo aan ka qayb galay waxaa la oran jiray naxdin iyo nasiib baa la oran jiray waxaa la oran jiray beef bath baa la oran jiray wad iyo wacad baa la oran jiray riwaayadii militariga yaa sameeyey markaa wad iyo wacad waxaa sameeyey muxuu ahaa ismaan aadan allah naxariistay ismaan aadan askari waan gartay marka heesihii maxaad ka mid ahaa kuwee ka mid ahaa wad iyo wacad waxaa ka mid ahaa inayahedhe inayahay indhahaygibaati ifka intaan ku noolahay ku ilaawi maayi arwaaxaduu ku jecel yahay lama uuradayyi ukolow sidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahay oo iyaga ijiis oo iga tag ay leedahay oo qasbayo waan gartay marka xilligaasi goormuu haa 21 bishii koowaad laga bilaabo xilligaasi dee riwaayada istaba jooga ayaad ka noqotay actor qaar aad heesaa ka ahayd qaar actorka labaadad ka ahayd dabcan riwaayadihii waa isdaba socdeen duka cadlu badan adduunyada ma joogo aynigaaga tiriyo 4 in yari kuma dheer carjo inta haddii aynu kaga nimaadno heestaasi ardo ee cabdi cali bacalwaan fanaaniinta ay inta badan heesaha wada qaadi jireen waxaa ka mid ahayd allaha u naxariistee fanaanadeeni weyneyd sahre axmed jaamac bal heestan laqanyada jacaylka ayaynu wada dhegaysanaynaa waxaan hadalba ilabin sida laygu kaalanay haddiyaadi koru noqo sida 12
anigu nebiga aqsada landa qajeeluga nebigii karka uu dhow intuu laacibleeyahay oomuna samado waxaanu hawada hadal ana laabta kaa jaray madnoqoti buuxa gacalwaan heestaasi riwaayadebay ku jirtay dab jacayl kari waa jacaylkii oo la karinayo ayuu dabkiiba kari waayey ayaa dabkii kari waayey akugu dare hahe anagoo riwaada hargeysa ka dhigna hahe ayaa qolo oo liberia ka timid oo afrikaana wax afrikaana hahe ayaa noo yimid marka qabowluhu dhacaya haye bal amarka ilaahay qoladii marka dab baa loo shineeyaa iyagana durbaanadoodii ay tumayeen baa dab loo shineeyaa si nidaamka u dhawaaqo marka annaga dab jacayl kari waabaa iyagana waxaan u dhexnay dab durbaan kari waa durbaan qaboweeniyo dhawaaqaya ma dhawaaqayo de hali ay watee dab durbaan kari waa dab durbaan kari waa baa hargeysa waxaan ku dhignay riwaada isku celcelinteedii waxaan ku dhignay 54 habeen ya 55 habeen meelaha oo magaalada hargeysa oo kaliya laga daawanayo magaalada hargeysa kaliya aan ku dhignay intaas isku celcelis koor aad iyo aad bay dadku u xiiseynayeen markaasi fanka iyo riwaayadaha halkaas dana waxay dabcad riwaayad baas bay aad xawaandiyad u ah yaa sameeyey markaa riwaayadda ayaa hal abuuray riwaayadda xasageli baa sameeyey xasageli baa hal abuurkeeda xasageli baa lahaa waata riwaayaddaasi marka imika dib loo eego cajaladaha ay ku duuban tahay mar sahre axmed jaamac baa dhigaysa marna khadrad daahir cige ayaa iyaduna dhigaysa heese isku mid aanay labadooda midba mar qaadaysa sidee ku dhacday markaa waxay ku dhacday sahra markii hore originaal ahayd oo nala dhigtay marka sahra markii ay riwaayadii nala dhigtay oo aan riwaayadii aan soo qaadaynay oon koonfur soo aadaynay 75 bilowgeed ayaa sahra uurba yeelatay marka maadaama uur weyn yeelatay hadday xamar nimaado nagalama dhigi karto marka waxaa laga yaababa inay umushada marka waxaan ku talagalnay khadrad daahir oo iyadoo ardayda aan maanta oo kale shacabkeeda iska soo helnay mida aan ka soo qaaday nin la yidhaaho joobila oo la yidhaaho riwaadii golib iyo geeri sameeyey ayaa ka soo qor mira aan ka soo qorwaxayey heesa la yidhaha afka lagama sheegto adigoon jacayl arag heestii ugu horreysay ayaan laxanka u saaray aniga saaraxan waa tahay gurigaygaan ku xafidsiinay marka gabadhii waan jeclaanay waxaan u jeclaanay inay gabadh far oo soo baxaysa ay tahay marka waxaan war gabadha aan kaxaysano aan soo saaray iyadana waata sheekadaasi aad bay dabcan u xiiso badan tahay inkastoo khadrada hirna waqtiga aanu suurtagal ay noo noqoto aanu dabcan kala sheekaysan doono bal sidee aad ku soo hesheen waxaan doonaynay October-ta waxna gabdhaha la dhigaan iskuulaad ka raadinay waa tahay marka inta ku wareegnay markay aan kawanka u timaday mid walba ardaydii oo iskuulka ugu tagnay gabadha si fiican u heesaysaan arag waxaan weyn soo martay marka laxanka ka siinayba waaba ku luuqaysa iyadiina waa xafidsiinay gabadhii marka waa soo kaxaysana waxaan lihi habeenna khasaa dhigaysa habeenna waxaa dhigaysa intaa jid ku jirto habeenna waxaa dhigaysa saara markaan xamar nimaadnana waanu ku celinaynaa saaray diyaaradda ku saaraynaa khasaa koonfurna naga dhigaysa waa tahay xamar baa waxaan soo gelinay gabadhii oo sida u danaysa oo dee wax celin karaaba ayay jirin oo se u qaadaysa la yaabayba oo dee waxay qaadaysaa labadii heesa ila qaadaysa laqayada jacaylka iyo faraskaagii laga badi wax allaala fanaaniintii muqdisho joogtay oo dhan wax siyaadka isugu yimaadeen habeen walba riwaada la dhigayo gabadhaasaa la daawanaya waaba loo daawasho yimi gabadhaasaa la daawanaya fanaaniinta cid kama maqnaata habeen walba bacalwan sidan maqlay waxaad ka mid tahay dadkii lagu bilaabay kooxda magaca weyn le ee fanaaniinta soomaaliyeed ee waaberi bal sidii kooxdaasi lagu aas-aasay iyo sanadkii uu ahaa haddaad xoogaa nooga sheekayso 71 waxaa naloo soo wareejiyey tiyaatarka ayaa naloo soo wareejiyey kooxdeedii militariga oo dhan militari waa laga soo wareejiyey haya waxaa nala keenay tiyaatarka radio muuse iyo radio hargeysana waxaa laga keenay 10 iyo 10 20 iyagaa iyo 43 anaga 63 waxaa laga dhigay bayskii fanka Soomaaliyeed oo tiyaatarka la isugu keenay markaasa waa beri laydin bixiye magaca waa beri baa loo bixiyey waata ma xusi kartaa markaa 20ka laga kala keenay radio Muqdisho iyo radio Hargeysa haye kuwee kamid ahaa fanaaniintii waxaa kamid ahaa Ismaan Gacalo baa kamid ahaa James Abakor gudiga kamid ahay
waxaa kamid ahaa sooraan baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa cali faynus baa kamid ahaa allah naxariista waxaa kamid ahaa ismaaciil yare iminka sawirkii baan hayaa markii sawirka iyagaas aanu isku sawiray tiyaatarka ama sawirka iyagii baa hadda hor yaalla ma aqaan 7 iyo 8 20 meelahaas ma dhamato 12 baa ku nool intii kale waa dhamaadeen oo aniga aan lay garanay dee waxay gadan qofkan garaawad ay iga soo saari karo inay yaro aan shaarab lahayn oo gar lahayn oo xadli askam waa tahay marka bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasano heestadina xusuusin lahayd kuwaad ugu jeceshay heesahaaga wallahi waxaan kaa xusuusin karaa sida laan mareero dhudmaraya ku agtaal iyo qurac mataano saddexdu isku maray oo madaxa laamo manka iyo caleentiyo midhuhu is-cigiriyeen lixdiina qabaa إذا موتك لفتي كأون مدروبي هدينا ما غلطا ما نمشي غدا مرحلة دور يدون مثل بنوق ومدب غدا مرحلة دور يدول مثل بندوق ومذا وفيو أدا ترى وفيو أدا شرع رجعي أدا وفيو أدا شرع رجعي أدا وفيو أدا شرع رجعي أدا يا ولي
يا ولي بميرتو أبوكو من إسكاي أبوكو من إسكاي